واتهاي dhegeystayaal bal markana sheeko cajiiba bisad rabaayad u ahayd qoys Soomaaliyeed oo ku nool magaalada tan London ayaa ku dhimatay shil baabuur kadibna ciidamada booliiska ayaa la soo xiriiray qoyska Soomaalida oo u sheegay waxa ku dhacay bisadoodii aadan warsame buryar oo hadda stuudiyaha ila fadhiya ayaa qoyskaasi aaba u ah aadan in waxaan jeclahay marka hore inaan ku weydiiyo sheekadan la yaab kale intaan aaski bisada iyo wixii dhacay u gudagelin horta booliisku maxay idinku yiraahdeen markii ay idin la soo xiriireen farxan waa maadsan tahay waa runtii waa qiso cajaa'ib la weeyaan oo markaad waxa jirtay eray Soomaaliya oo oranaya nin adduunka joogo maxaa aragtay ku laaban waxyaabo waxa jira aadan filaynin inay kaaga hor yimaadaan adduunyada tan khaasan beeyada marka si fiican u fahamtay booliisku wayna soo waceen habeenkii axadda ahayd goortii aan seexanay adigu 12 iyo barkii ayaa telefoonku qayladiisu mataqaana demi weysay markii hore waan ignore gareynay oo ma aanan qabanin markii horeeto goor dambe markii telefoonku uu istaagi waayay ayaanu qabanay wuxuuna ahaa nin booliisa marka wuxuu nagu yiri reerka magacaas lama tihiin oo bisadaas maxaan ku raahdaa marka hore markuu telefoon aan ka qabanay si degan oo qof mataqaana ka walwalsan dareenkaaga oo kaleeto yiri waxaan ka xumahay inaan akhbaar xun idin soo gudbiyo reerkaas oo naxdin lahaa reerkaas oo ma tidin ha bisada magacaas la idinku ma lahaydeen ha bisadii shil baabuur bay gashay isbitaalkaas xoolaha baanu nageynay la xiriira wax yar kadib intaan nus saaca kadibna waxaana soo wacay isbitaalka laftigiisi baana soo wacay sidii oo kaleeto iyaguna aad moodid inay dareen maxaan ku idhaahdaa walwal ah muujinayaan oo ay kaaga tacsiyeynayaan waan gartay wax su'aasha markay isweydiinta mudan waxa weeye bisadiini baa shil gashay booliiskii iyo isbitaalkii baa idinka soo wacay sidee lagu ogaaday waxa weeye waxa lagu ogaaday wadanka kan bisadaha iyo eyda waxaa ku jira chip ama badhan maxaan ku radaa korontaha ayaa ku jira oo ay ku qoran yihiin magaceeda taariikhda nololeedkeeda oo dhan caafimaadkii ay qaadatay dhakhaatiir talaalada ay qaadatay iyo magaca qofka iskale iyo adresskiisa iyo telefonkiisa marka bisadaha iyo eeyada wadanka kan joogo oo dhan dhaqanka waxaa jira waa inaad diiwaan gelisaa diiwaangelintaas ayaa waxaa la gelinayaa badhan baa la gelinayaa oo chip ah oo macluumaadkaas oo dhan ku jiro iskaan bay marinaya marka isbitaalka la geeyo iskaan marinaya maxaa bisadii marka maxaa ku dhacay bisadii sidaan marka dambe ogaanay naag dariskayga oo naga dheerayn bisadu waad ogtahayo way iska baxaan wuxuu leeyahay albaab asaga u gaaraho oo badhankaas korontada ka furo uu kuna soo galo oo furo oo kaleeta ah uu kuna baxo kuna soo galo marka habeenkii wuu baxay markuu casheeyey buu baxay wuu baxaa wuu soo noqdaa adigu waa bisadoo marna way baxaysaa marna way soo noqonaysaa naag baa ku dhacday gaari baa ku dhacay booliisku siday wax u dhaceen nooma aysan sheeginin laakiin reer kale oo dariskayaga oo Soomaaliya waxay noo sheegeen inay la soo istaageen markii shil ku dhacay naagtuna waxay tiri bisada iyadoo ordaysa unbay maxaan ku soo hoos gashay saas ku dhimatay way dhimatay magaceeda marka magaceeda Mayla leeyahay gabadhan dhalay baa bisada iska lahayd oo Mayla u bixisay laakiin arrinta cajaa'ib kale waxay ahayd isbitaalka markuu nala soo xiriiray ayuu wuxuu ku niri bisada hadday dhimatay wuxuu yiri ma imaanaysaano waxaa la rabaa inaad bisadii inay tahay in kale tiini inay tahay in kaleeto inaad la kala ogaado waxaanuna ku niri hadiiba aad ka akhrideenba macluumaadkeedii jibka waa iyadii dee iska tuuro meelaha baktiga la geeye markaasay sheekada weynu bilaabatay haye maxaa dhacay markaas waxaana la yiri maya arrintu saas ma aha sideedabana wax weeyaan wadanka kan intaan ku noolaa muddo dheera isma lahayn waxyaaba kaa qarsoon baa jira war maya iska tuur ma jiree waxaana la yiri iska tuur ma jiree bisada waa inaad noo timaadiin waa la duugahayaa layskama tuuro xoolaha baktiya halka kan marka habkii loo duugi lahaa iyo noocyada kale qorshihii iyo noocyada kala gedisan oo loo duugo baan kala tahay haddii kaleeto annagaa duugayno lacagtana waan soo dalacayna marka bisadii aas baa loo sameeyey bisadii waxayna dhahaan saddex waxaad leedihiin maxaan ku idhahdaa saddex baad kala dooran kartaan saddexdii bal noo sharax si kooban iyo wixii aad ugu dambayn go'aankaad qaadateen farxaan saddexda fursadoodana kala siiyey waxay ahaayeen oo la wadiin bannaan yihiin in qabuuraha xayawaanka lagu xabaalo in la gubo oo labaduba kharash mataqaanaa ku kacahaya qofka iskale bisaduna uu bixinayo oo annaga iyo tan saddexaad oo ay dhaheen haddaadan intaa midna yeelaynin dabcan tan gubitaanka lama ogola diiniyin lama ogola waxay ahayd in haddaad leedihiin dhul gurigiinu hadduu leeyahay jardiino ama beer inaad ku xabaalatiin
taasaanu mataqaana qaadanay laakiin dhibtu waxay ka timid carruurtii baa diiday tiina waxay tiri ma doonayna in meesha naloo ku xabaalo waa ka naxaynaayo markaas waxay ugu qaadatay asbuuc dhan in bisadii ay qaboojiyaha meydka la geliyo igu jirto oo intaan carruurtii mataqaanaa bal aan sasabayey oo ay mataqaana iska bedelayeen aan maxaan ku idhaahdaa asbuuc dhan ugu qaadatay ugu dambayntii carruurtii markii aan ka dhaadhiciyo aan ku iri xayawaan ma gubayno lacag intaan leegna inaan ku bixino bisada duugaya lacagta marka midna waa 500 iyo midna 500 bay ka bilaabanaysaa midda xayawaanku waxay qabuuro gaar ah u duugo waxay ku leeyihiin xataa waxa lagu xirayaa madaxii dhagaxii magaca wixii baa lagu xirayaa wixii baa lagu qorayaa oo lacag badan midda kalena tan kale waa 200 oo geniyo waa la gubayaa dambas baa laga dhigaya dambas baa laga dhigaya taa laftigeeda waxay ku leeyihiin dadkan moogtahay galada waa nooc taasaa laba qaybeed oo mid xayawaan badan baa la isla gubaya midna keligeed baa lagu gubaya haddaad rabto in keligeed lagu gubo oo lacag zaa'id aad ku daraysaa marka intaa markaanu samaynay waxaan soo gatay qalabkii wax lagu qodayey godkii baan u qoday waan xabaalay marka waxaa la yaab leh laba nin baa wuxuu yiri laba kalaba is saarayo laba tawogo isma saarin bisad baad qabuur u qodaysaayo weligeed iguma soo dhicin oo xabaali doontaa waa arrimaha mataqaana la yaab kale farxaano waxaa taa kaloo ka darnay subaxii markii habeenkii naloo sheegay in bisadii ay dhimatay oo nala yiri subaxii waa inaad timaadeen isbitaalka ayaan shaqadii baan wacay habeenkii axadda weyna isniintii shaqaa layga rabaa mayd baana yaala horey baan waxaan u ogaa qolyaan isla shaqayno eeya lahaayo cadaanaho eygu maruu ka dhintay fasax mataqaanaa la siiyey loo tacsiyeeyo marka بريشر ما يجهز إنه على يسوون دريمي مركان الله اللي وحالي واللي تعسيه وحالي دوان كحنا إن بصدق كاد متيو ده متقارنا تعسيد كوجس مركان تعسيد عاد سوق ده تدو أي متقارنا درين كا صدقوا مركان شغلة هذا يمو متقارنا باب الجو تعسيه باب اللي تعسيه وهل كانوا حنو كذا كارر بدنو هذا مت كان قعنت كوهايو أي كوسو قرن ضد بدنو تعسيه أي كوسو قرن هذا كار كانوا كلا وحليه هاي مس عبدي واحد نجا بشا تعسيدي في إنجليز بيكون qoran tahay mayla mukulashi baa lagaga tacsiinaya waxa kala jira iyaguna tagsiyada qaar kood hadda kaarka kanu xaaskayga ku socotay runtii oo waxa u soo diray qolihii markii hore meesha bisada ka soo qaadanay maxaan ku iraahdaa markaan inaad u sheegtaayo inay bisadii dhimatay oo ay faylka ka saaraan waxa u geliya marka qoladii baa kaarka soo dirtay laakiin dad kale to asxaab ama wada shaqeyno ama kuwa dariska xataa ajaanibaho mutaqaana afrikaan iyo cadaan gurigeyba noogu yimaadeen booqasho oo tacsiin bay noogu yimaadeen marka labadaas arrintaas waxay ku tusaysaa ma ahan oo kaliya dadkan oo dhanu inay bisadii ka walwalsan yihiin waa dareen bini'aadnimo ay ku tusayaan adiga sayid yani waxaad ka wadaa waxa laga baran karo arrintan waxaa laga baran karaa waa mid horta intaas waxaana loo marinaya xuquuqda xayawaanka ilaalinteeda waxaa jira sharci waddankan ka jira oo haddii gaari adoo wata aad ey ku dhacdid aad dishid ama dhaawac noqdo waa inaadan meesha ka dhaqaaqanin ilaa booliiska aad u yeertido u yimaado bisaduu kuma jiraan meeshii aanu meydka ka soo qaadnay bisada baktigeeda ka soo qaadnay warqadayna si ay leeyihiin fadlan waxaan ugu jirnaa dadaal in sharciga bisadahana sharciga lagu dabaqee saxiixa waraaqaha saxiixoo noo soo celiyo dacwadda nala gala marka waxay ku tusaysaa horta xayawaanka in loo naxariisto iyo qofka maxaan ku idhahdaa dadka in asagana dadka noo tacsiyenaya inta badan waxay iyagu u yeelayaan bini'aadnimo oo mataqaanaa adiga ay ku naxariisanayaan marka diintuna way qoraysaa way sheegaysaa in xayawaankana la tixgeliyo marka waa arrin cashar bay ku ahayd Soomaaliya dad joogi leh xaalka sida ma ahaatay cashar weyn bay ahayd may waa laga yaabaa dadka dhageysanaya inay qaar la yaaban yihiin laakiin waxa dhaca weeye marka cimrigaaga sheekadii ahayd amal cimrigaaga oo raaga geel dhalinyar waa ku tusaa marka waa tii oo kale farxaano mukulaal aas loo sameeyay laakiin dadka halkan jooga ama Yurub jooga ama Mareykanka Ingiriiska joogana waa inay ka bartaan oo waxaas u sugaysay ay ku tala galaan iyaguna aad iyo aad baad mahadsan tahay aadan warsame buryar idaacadiina inta ayaan ku soo gabagabaynayaa maxamed maxamuud cadde ayaa soo saaray mar kale ayaan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina waa farxaan maxamed jimcaale oo idinkaga tagaya ismaqal dambe oo xiiso leh